hasaawuhu waxa weeyaan waa erey shukaansi oo bimacnaa ereyga shukaansi waxa weeye waa isfahan laba qof inay isfahmaan labada qof shukaansanaysa ama waa isfahmi karaan ama isma fahmi karaan ama ay isfahmaan ama ay isfahmin kaasa waxa loo yaqaan shukaansi loo bixiyay haddaan sii bidhaamiyo shukaansi waxa lagu macnayn karaa laba jinsi dhidig iyo lab oo sheeko wadaag oo ku salaysan in ay isaga sokeeyaan dadka kale anagu magacaan u bixinay hawsha aan soo gaadhnay wuxuu ahaa xodxode ul dhuuban oo loo yaqaano usha xodxodka ayuu ku wadan jiray markuu guurdoonka yahay gabdhaha waa lagu gujin jiray oo la jiray xod baa la dhihi jiray gabdhaha arrinkaas horta xodxod la dhihi jiray arrinkaas markii gabadhu ay xoolaha ay raacdo xageer caawa kugu imaadaa aqalka dhankaasaan ka seexdaa ardaa baan seexanayaa hawshaasaa lagu ballami jiray ilan taleefon ma jirin hadda maxaa kula sheekaysanaya haddaad tirahdid macaantu waa ku jeclahay la-aanta ma lolaan karo saan ku raadinay kabihii baa iga dhammaaday haddaad ereyada ku dhawaaqdid meesha waxaa imaanaya dareenaa imaanaya dareenkaas marka diinta islaamka kasoo horjeeda marka intuus dareenkaa imaan waxyaalo kale ka sheekaysta waxbarashada ka sheekaysta mustaqbalka ka sheekaysta maxaad ii samayn doontaa aan ka dhaxgal xabiib waa muhiim labada qof waxay isu hayaan iyo waxay isu dareemayaan xiisaha ahaad jecel ha ahaad inay isla wadaagaan isu sheegaan haddii maanta gabadha aad u sheegin waxaad adigu gudahaaga ka dareemaysid iyaduna aynu kuu sheegin waxa u wada joogtaan ama isugu imaataan ma lahan laakiin markaad isku imaataan waa inaad isu sheegtaan qof walba qofkii kale wuxuu u qabo miyayna ahayn anigu fikrad baan qabaa fikradan qaba waxaa weeye qof labada qof hadday isu yimaadaan qof walba qofka calooshiisa waxa ku jirta damaciisa inuu sheego sax aynigana markaan hadda naag la sheekaysanhayo haddaan la sheekaysto waxaan u sheegay inaan jeclahay hadday tiri anigu kuma jecli waxaan ogaanayaa inay nacsan tahay inay nacsan tahay yaan ogaanayaa anigana waxaan sheegay jacayl iyadana waxay tahay kuma jecli waxaan jeclaa oo iga jiitay iyaduna noqonaysaa markaas iyadu waxaan qabaa anigu labada ruux hadday dhalinyaro yihiin iyo hadday dad waaweyn yihiin jacaylka wixii kale ee tallaabaa kale la qaadahayo waaba dembi iyada laakiin inay xaqiiqa loo sheego waan qabaan aqliga saliimka in la isu sheego antan aan qabaa Soomaalida ka dhaxan jacayl ma jire jirkaas ku baahan jacayl ma jire jirkaas ku baahan marka Ibraahim baa wuxuu yiri jacaylku waa cudur qofka la jecel yahayna waa dawadi hadda gabadha maanta aad la sheekaysanaysaa inay moos kugu hor cuntaa laga yaabaa afakaadha inay soo galataa laga yaabaa inta afakaadha soo qaadanaya jacaylka reebeledka adoo xalay lagu aroosay gabadhii baad jooha gelaysa sodoha kugu soo garaacaysa guriga jooha kugu soo garaacaysa kugu soo garaacaysa baad leedahay adigana annagana intii aqal halkaa lagu dhiso yaa ninku markuu kaadi u baxayo maalin socod buu ku soconayay raad gadan si tuuga iska raad gadanayay kana caawa markii lagu arooso guri sodoha kugu soo garaacaysa wuu ku raagay meesha maxaa ninkan meesha fadhiyo